بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النبي عليه الصلاة والسلام حديث تكسوغا وحوت المامية دول أما قوم مال السقومي مادان قرية إلهي كمده iyagoo rabbigood xusaya hadday se taasi dhacdo buu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam in ilaahay malaa'igtiisu ay soo degto hareerayso jamcaasi yacni waa meel naxariis iyo raxma ay ka jirto ilaahayna il gaara ku eego waa kii xadiidka kale tilmaamayay isna saxiixa ahay dadka muslimiinta ah hadday meel isugu yimaadaan qoom baa meel isugu yimi ilaahay xusay malaa'igta ilaahay u soo diraa maxay qabanayaan waa loo sheegaa isagoo rabbi og subxaanahu wa tacaala akhiiran baa ilaahay yidhaahdaa markhaati ka noqda dembigooda dhaafee markaasaa la yidhahdaa yaa rabbi waxaa ku jira nin isagu xaajo baahi kale dan kale u yimi ee aan u imanin dikriga iyo xuska inuu ka qayb galo إلهي سبحانه وتعالى وحوت المامين قوم لا يشقى بهم جليسهم ودول عند الله فرد أنا يقول در ريسانين هذا إنه أنت نسقوني أو يسقوني إنه إلهي حصوصنا سبحانه وتعالى دين تينا وحسق الشيخنا وحين قرن كرنا وحكوا أغانو وحن رجينا أن يدون إنه هجاتي سنة سر ربي إنه قدره kuwa ku tilmaamaya qowmun laa yashqaa bihim jaliisuhum kuwa ilaahay dembigooda dhaafaya u naxariisanayo ama kuwa lagu tilmaamayo xafathum almalaa'ika oo malaa'igtu waqashiyatuhum alraxma uu nebigu ku tilmaamayo inay malaa'igtu hareeraynayso ilaahay naxariistiisuna inay koobayso marka ha loo dadaalo meelaha ilaahay dikrigiisa iyo xuskiisa iyo weynidiisa iyo cibaadadiisa iyo hadalhayntiisa lagu hayo casriga dambe dadku waxyaabo kale u dhegtaaga dee waxaan arkayaa dadku magaaladu masaasay dhallinyaro uunu tahay laba oday baan idinku dhex arkayaa baan u malaynayaa inta kale wax madaxa ciro kule ma arkayo haddaad dhallinyarana noqotaan ilaahayna xustaan ilaahay waa la cajabaa buu nebigu tilmaamayay شاب لا صبوة له ويلان كفكف لهين ويل طريقة توسكا يان كفكف لهين ربي بل عجبال غت المامية إذن وحمد الله هل كان كسي وضع إلهنا سبحانه وتعالى حق هين قصقو هين قرط سيو كوي جتكي النبي محمد راعة عليه الصلاة والسلام هي أنت الرالي كي هي جيت كودي إلهي نقوى ضيارة السلام عليكم ورحمة الله